GTR 34 waa mid ka mid ah baabuurta Japan ee caanka ah oo si wanaagsan loo xafiday. Tusaalooyin hoose kayd ah oo lagu iibinayo $5 milyan. Haddaba maxaa dhacaya marka aad rabto GTR laakiin aadan haysan dhaqaalaha loo baahan yahay wax dhabta ah? Jawaabtu waxay ku qarsan tahay garaash yar oo Thailand ka socda oo dhisaya iibinayana R34 nuqul oo ku salaysan Rover 200 Coupe, laba albaab oo Ingiriis ah oo laga soo bilaabo sagaashamiyadii hore. Saldhigga ugu habboon ee nuqulka R34, laakiin haddii aad si dhow u eegto waxaad ogaan doontaa in labada nooc ay leeyihiin naqshad la mid ah daaqadaha dhinaca. Tani waxay sahlaysaa in la bedelo iyadoo la ilaalinayo aqalka dhirta lagu koriyo. Farsamayaqaanada Thailand waxay kala furfuraan xagga hore iyo xagga dambe ee Rover 1992 ilaa 1998 iyagoo ku daraya baalal jireed oo cusub oo keenaya kor u dheeraynta. Waxay isticmaalayaan qaybo dhab ah ama kadib marka laga soo bilaabo jiilka 10aad ee Nissan Klein 1998 ilaa 2001 oo ay ku jiraan nalalka hore iyo nalalka dambe iyo wixii la mid ah. Marka laga eego cabirka 4270 mm oo u dhigata 168.1 inch dheer, Rover ayaa si weyn uga gaaban Nissan-ka dheer ee 4600 mm oo u dhigata 181.1 inch 181.1 inch. Si kastaba ha ahaatee, saldhigyadoodu way ka dhow yihiin intii aad filaysay inay cabiraan 2550 mm oo u dhigata 104 inches iyo 2665 mm oo u dhigata 104 inch siday u kala horeeyaan. Tani waxay u ogolaanaysaa muuqaal quruxsan oo lagu qanci karo oo kaliya R34. Haddii naftoodu ku xadidi lahaayeen naqshada dibadda, kooxdu waxay aadeen talaabo dheeraad ah iyagoo u bedelaya gudaha. Sidoo kale, dashboardka dhammaystiran iyo konsoolka dhexe waxay ka yimaadeen R34, kaas oo u muuqda mid cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan filan shaashada telemetry cabbirada dheeraadka ah ee GTR, maadaama qaybahaasi aad u adag tahay in la helo. Tusaalaha gaarka ah, sifada ugu yar ee lagu qanci karo waa calaamada GTR ee steerinka. Haddii aad la yaaban tahay waxa ku hoos dhuunta daboolka dheer ee hawada laga sii daayo, u diyaar garow inaad niyad jabto. Waa kaydka hoddanka ee helay 1.6 litir ingain oo soo saara 190 HP oo u dhigata 82 kilowatt iyo 111 PS. Inkasta oo noocyada kala duwan ee Rover 200 Coupe ay lahaayeen gudbinta gacanta, tusaalahan waxaa lagu rakibay sanduuqa gaarka ah ee otomaatig ah kaasoo awood u soo diraya xagasha hore.